وصومالي حاجة جوكتو اسبوعين كلا قبطة يسر الله وحان مغلد جري إلهو عيبتا أسطر هدي اللي يرا عيبي ما أسطرنا soomaalidii carab iyo cajab xajka taagan bug war kala qabta haddana gruuba loo sii kala saftaba laba gruuba loo kala saftaba qodobkan bulshada soomaaliyeedaan ugu deeqay ha ku raftaan micna wala ceebe ma asturna waya dhanka iyo siyaasadda ninkii cali jayta ahaa boqorkii beesha hawaadle oo iska diiday casuumaad ka timid fila Soomaaliya waa kuma dalaalka u dhaxeeya xasan sheekh maxamuud iyo cali jayte muxuu diiday qaybta koowaad ee barnaamijka ayaanu ku falanqeyn doonaa ee dhanka iyo garowana anisa idin sheegay ninkii Siciid Dani ahaa nin sahlan ma nin dagaal ku harana maaha horta xujo keenay wuxuu taagan yahay nimankii agaasimayaashii aan magacaabay ee Ciise Ruush bilaash idima magacaabin haddaan mishaar dhiibayo ku idinka horeeya si laaya micnaan ila magacaabo horta ma taqaanidik war maxaa dhacay معويسلي عصب أنا كرباوي عيدا عصب إن نكست جفديس وكانوا عيدا عصب سلو دلو نارتيف كا عيسى الريولة يدنيا إسهستا ويا أباب لنك اللاس عاننا ووضا قضب كلابات برنامج كان كده قدونا يعني وصل لابتو وحاد داوتين موقال أرجع له وقلوبت أمد الصوماليات أن كده جن أرتو ده بوس وحودين ليه هاي رالي النقد وكرالي النقد برشة الصوماليات marka musuqmaasuqa xasan sheekh uu la dirirayo aad ka soo baxsato xajka iyo suuqa bakaaraha isku mid bay ku yihiin sababtoo xoolo xaraana ayaa xajka ku imaada oo maxaa saas u leeyahay dadkoo dhan ma aha laakiin nin xajka xoolo xalaala ku yimid xataa haddii la fiiro xataa uu iska sabraa ilaahay hortiisa taagan tahay markaasaa inta laba nin la isku dagaal ama dagaalku gabar ha ka bilowdo ama saqiir ha ka bilowdo ama hooyo ha ka bilowdo ama nin ha ka bilowdo halka la taagan yahay ayaa wax walba ka qiimo badnaan leh حتى هدا wax afiso milyan jeer ka sii ajir badan wala garan waayo xoolo xaraan lagu yimaado maalmahan dambana Soomaaliyay mid ay sheegaya musuqmaasuq xasan sheekh wala diriray ka soo tagba xajki faanu iska noqdo xoolihii umad inta la soo dhaco baa Nairobi xajka u socda faanay iska noqotaba waa ka carab iyo cajab dunidii xataa gaaladii soo islaamtana la yaabayeen qodobkan anigu Soomaaliya u daayay commentiga ku rafta wax kale oo sheega ma qaane nin xalaal xoolo xalaal ku yimid oo soo dhididay والله حاجك إنه صندوق ميكون سمين حتى عدي اللي سميه ويسكع في الله أنت كي جود بايا بلشة قداي هكون رفتان وربقر كي باشا حوالي علي جيته أنا وايدين شيء وعلي جيتان راعي مدحتو يدي با عسومات وصدرت هرت تطبض أنا موجي إن كان عسومات مريكان يا كندو هرت الديدي حوالي يسقى يا بلد وين هالكاس جر لقوا عيارة يا هرت في سم مريكان يا ميت كندا السقى هيستو بو هرت بيحلايه ميت في الصومالي قرن ماي odagii waa la casuumay yaa waridi ku daalin waxa loo soo maray nin la yiraahdo Cabdirasaaq oo wasiirka batroolka ah wuxuu qayb ka yahay kuwa cali jayto oo muuqaal maal hore ku sharaxayo lahaa qarashow wuxuu yaqaanaa moogta in lama sharaxine waa Cabdirasaaq in adeerkiis abshir buqaari tiimka madaxweynaha ku safan mid kamida oo qarashooyaasha ah baa horta loo soo diray ilaa waa ilma adeere wuxuu madaxweynaha ku baahan isbuuca soo socdo boqorkiyow adigii boqorka ummadda Soomaaliyeed waa inaad kulantaan dad badan oo cali jayta ku hareeraysan wuxuu umaleeyaan haddii cali jayta la soo waco inuu hor ka baxay horta cali jayta warbaahinta Soomaalida si qalad ay uga hadashay cali ninka soo wacay Cabdirasaaq waaye wuxuu ku yiri Cabdirasaaq oo laba arin bas aan ka leeyahay Soomaalidan war maxay tahay waa midda koowaad horta adiga nin xawaadla tahay baladka qasanna waa balad xawaadle wasiir kaale imow bulshada dhageyso dhaqanka dhageyso markaas xal soo jeedo horta nin marti magaaladan kama tiid xasan sheekha ku wacay abshir buqaari telefoonka uu soo diray inta ka baxdid war nin wasiir xawaadla tahay halkaas adaa matalaad ku hayo bulshadaada xaalkeedu ma deganee kaala halkan imow ma diiday xasan sheekh aniga igama turjumaysid hadduu imaanayna asaa imaanay aniga bixi maayo hadduu isoo wacanaayna xasan asaa isoo wacanaayo anigu qarashow hore uga hadlooyin horta sidaas buu horta ku diiday casuumaadii muqdisho iyo filla Soomaaliya ay u fidiyeen ma ku saxan yahay ma ku qaldan yahay xasan asaga ha imaado taagay ama asiga hay soo wacda qarashow iyo isoo dhaxmarin bulshada u daay qodobkaasna garawe dani horta anigu dani waxaan ka sabray marka fahiimo quuje
iyo raxmo yar uu u kala hiiliyo midna BNBF u xiray midda kale isagoo ku xumeynaya horta halkaasuu dani iga jooga aniga dadkuu siraayo ayaga u taal ninkii maalmahan agaasimayaashii uu qortay ee ciise riyuula ah xuju ag dhigtay oo muxuu taagan yahay aniga bilaash agaasimo kaagama dhigine narrativekan ciise ruush iyo majeerteen ama mahartiya is haysta inaan dilaan rabaa iyo daniye ciise ruush iyo qabiil oo dhan inaan dilaan rabaa warnimayow agaasimayaasha cusub kuwii hore mishaar waa sii jiray adiguna hadda wax aa iisoo kordhinaysiin ma jirtay ujeedku wuxuu yahay idiin magacaabay inaad ciidan cusub oo ciise riyuula ah aad garoowe iyo banaankeeda iyo nugaal ka keentaan oo magaaladu dhan ciise riyuula kasoo horjeedo ee noqoto narrativeka qabiil ku dhinto qodobkaas ka soo baxa ma kula taha horta inay nimankaas ka soo bixi karaan waa kow isimadii isagoo hadda barnaamijkaasi intuu ku guda jiray labadan maalin buu ku guda jiray waxay ku soo beegmaysaa codsigiisa xilli ciidda kadib isimadii ay isku imaanayaan puntland qodobkaasaan rabaa marka inaan dhex galo ciise ruush agaasime hadday ciidan ku keenayaan kuwii hore u joogay ku keeni lahaayeen ciise ruush labeen buu leeyahy labeentaasaa wax keenta isin buu leeyahy isinkaasaa wax keena wixii ka hooseeyo dhanna waa wax lagu fashilmaayo horta ninkii isimadii puntland kuma war la'a in isaga ay diidan yihiin horta kuma war la'a isaga wuxuu wadaa markaan qoorateen wax loo wadaa nimankii garaadada ahaa ee laascaano ka yimid ee hadda ka horniiray xasan sheekh maxamuud 24 maalin ku burburay puntland 24 saaca ku soo dhameeyna garta horta nimankaas buu rabaa in uu gacanta midig ku dhigo si hadhow shirkii isimadan waa ka qayb galayaan ayaga ula saftaan adigu inuu isimadu dhex galo oo uu kala shaandheeyo ayuu horta qarash ku dhiibayaa si hadhow uu yiraahdo isimadii waa iskhilaafeen teeda ayaa soconaysa markaan intaas ayaa horta garowga ka cusub maantana waxaa la ii sheegay in ciidan beesha warsangeli ah uu maanta agabkoodii iyo lojistikadoodii iyo rasaastoodii inta siiyo laascaano u diray waxaad moodaa odaga inuu hadda weji fiican ka diyaarsanayo nimankan dhulbahante haddana warsangelina uu soo qabsanahayo haddii xataa 8 January la aadana beentu ma fiicnee haddii nimankan dhulbahanta sidoo hadda isu haystaan inkastoo laascaani goja hadda ku lugooyay sibay isku wataan la ayaga garaadadii iyo jamaahiirtii iyo dani sibay isku wataane haddii uu gacanta ku dhigo nimanka xildhibaanadooda iyo warsangeli rajo badan buu leeyahay laakiin taladaas iyo caqligaas yaa siinaya extension iyo xabad iyo garowe UN-ka xataa waa ka guura koronto ma jirto biyo ma jirto alla ilaahay ninka ayaa u caqli celiyo yiraahdo war sida xildhibaanadii aa u soo saaratay Soomaaliya federaalka kuwan baa u soo saaran kartaa dhulbahanta waa ku jecel yahay oo warsangeli gurigaada kuwa jooga qoran kartaa maxamuud Saleeman inta ka shaxaadi kartaa intaas ma gartaa nin fiimo quuje iyo raxmo yar u kala helna intaas ma gartaa allaha ku duw intaasaan leeyahay waayahay intaas ayaa caaw cusub saaxiibayaal inta barnaamij noocan ku kulmi doono waa saaxiibkiin booska oo idin leh ciid wanaagsan bye bye